ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، ورمضان waxaan filayaa waa waqti malaadadku daalay, laakiin waxaan isku dayayaa inaan kalimaad kooban insha Allah taala dariskan ku soo koobo. dariskan waxaynu kaga hadlaynaa at-taqat al-muhaddara, awoodaha Alla siiyay subhanahu wa ta'ala ee aynu dayacnay ama si aynan adeegsanin. Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamay wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ilaahi wuxuu nimco idinku galladaystay, wuxuu baraariya saradiya barwaaqo idin siiyay. haddaad tirisaan baa Alla leeyahay subhanahu wa ta'ala ma koobi karaysaan. nimcooyinka Alla subhanahu wa ta'ala ma aha wax tiro lagu koobi karayo. laakiin waxa isweydiinta leh waxa weeyaan intaynu nimcooyinkaasi ka faa'iideysanaa ama si adeegsanaa. dhan kastoo laga eegaba nolosha waxaad moodaa inaynan halkii loo baahnaa gaadhin ama si aynan ku qanacsanayn. maalan waa ramadaan, dadku inta badan quraan akhris iyo cibaado iyo salaad iyo tasbiixaat iyo duca ayuu ku jira. markaynu milicsannay in yar taariikhdii dadkii muslimiinta ee hore, waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kawkab kale ku noolaa, dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganay aan deganayn. markaad aragta awoodooda, juhdiga, tamartay bixinayeen, waxay yaqaaneen, waxay qaybsanaayeen, marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulaana, maanta waxaan ku dhuftay kutub الrijaal ama taraajumka ayaan xafid alqur'aan ku qoray, dabeetana waan galay. waxaan eegay bal culamadii muslimiinta ee hore ee la yaqaanay ama la garanayo waxay qur'aan hayeen. maan arag nin caalimo iga soo horbaxa ilaa iyo qur'aan iyo intaasoo kitaab oo kale u qaybsay qur'aan qura. inagu keenna qur'aanka qayba ayaa ma sha Allah taagantay, kaasaynu ma jiranaa farta ku tilmaamna waxa la yiraahdaa intaasoo xaafid baan leenahay hebel waa xaafid. laakiin markaynu salafkeena akhrino taariikhdooda iyo taraajimtooda, waxaad moodaa dad kawkab kale ama dhul kale deganaa inaynu arkayno. oo kaanama marka lagu yiraahdo waa Bukhari intaasoo 100,000 oo xadiis buu qaybsanaa, waa Imaam Ahmed oo 1 milyan oo xadiis buu hayay, waa Awzaaci oo intaasoo 100,000 oo xadiis. nin walba marka lagu yiraahdo 100,000 oo xadiis oo maca sanadkiisa wata iyo wuxuu dhanban kitaabba ku qorayna uu korka ka watay, bal ay subac u fadhiisan jireen sidaynu quraanka subaca ugu fadhiisanaaba ee xadiiska subaca ugu fadhiisan jireen. dabeetana inta nin caalim nin kale u yimaado uu ku dol akhriyo jiray, wuxuu mahfuudaadkiisa dhan inta ku dol akhriyo ayaa la isla sixi jiray oo la kala eegi jiray. innaga maxaa taaqadan iyo awoodeeni xagee ka baxda? dariskan markaa maanta aan isku dayay inaan akhriyo waxa weeyaan, waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa mikriska, waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno. muraayadaynu xidhanay aad u qallafsan, muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inaynu noloshii xaqiiqada ahayd aragno. taasaa waxay keentay markaasi in taaqaadkeeni iyo awooddeeni iyo dhamma ay catilanto oo waxba aynu garan kari weyno. taasaa waxay keentay in maalinimo maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu isla berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad waqti u dayday doontaa. noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro. waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo, laakiin silsiladaan idinka jibinaya. yani waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin, awoodii iyo taaqadii Alla ina siiyay subhanahu wa ta'ala in silsilada inagu xidhan yihiin. waayo shayga nolosha ay u baahan tahay. maalma ka mid ah waxaan galay netka, dabeetana waxaan galay labadan website ee
xufaad ulwaxyeenka laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo kadib baa waxaan arkuun iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidii waa qariib war mala 30 maalmood qur-aankii aad taqaanay 30 mala laguma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiyo uu tilmaamayo uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walazima walmusaabara midi waa hansare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii la lahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoo waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye Soomaalidu waxay yiraahdaan geela baa aakhira xoogiisa la tusaabay yiraahdeen adduunka ilmo yar baa neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirun buu xoogiisa arkaabay yiraahdaan waxaan ka baqayaa inteena badani inaynu ku dhacno aakhira inaynu aragno awoodii iyo nimcadii iyo xoogii Alle siiyay subhanahu wa ta'ala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo الصحبة الصالحة المشجعة إن له الضد في عن وقرقار ستور راعدد وأن مثبطين هنا أن ضد لك كقولنا بيا هنا ضد كركو قاضي يكركو سي وضيا وحلا جاي با ولينا وهي ستان إعلان كيا تلمامي ها إن قرآن كصدن مالموت صادق قيبة سائنة مسألة الرياض هاي وحاول سمية عملية حسابه حسابته وحيابه وكونكريت سنة بني آدم كاللغو قنعيه عملية حسابه بسمية وحكوت المامي بيج كقرآنه إمساتكو غيبي كرتاه بيج قرآنه أن حسابته حاجة كالك الصومره جيسك قرآنه إمساتكو أخرده نينك قابي نص ساعة كو أخريه رجع عرب كفضود إننا ربع ساعة ما لها سيجار سينكرا متوسط تكون 20 إلى 20 أي كو آخرية هدان إلى هذا جيسك نص ساعة كو آخرية جيسك قرآن وين مسبيج ما كانوا قادنا طبعا عثمان طه وقري يعني مصحف كان إنه آخرنا نبقى عنتي سكو قري مطبعتي وحماها نبقى عنتي سكو قري عثمان طه كتاب كان قري وحوسه ما يسيء قابة 15 صدر بيج كستابay inuu ka kooban yahay aayad inuu ka bilaabo aayadna uu ku dhamaado jis waliba 20 beyj inuu yahay marka laga reebo jiska koowaad ee faatixada iyo intan la qurxiyay kaasi waa koob iyo 20 beyj marka laga tagay isna jiska ugu dambeeya ee jis caama ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 23 beyj ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 beyj jis kastaaba sadaradeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 beyj haddaynu idhaahna 20 beyj ayaad gaabisaayo nus saaca ku akhridaa nus saaco beyjkii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood qaybi waa daqiiqadii badh saxanka ma beyjka waxaad akhri kartaa daqiiqadii badh qofka gaabiye 30 daqiiqadood jiska ku akhriya beyjkii wuxuu akhri karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhri karaa صدر إمسات كحفدي كرتا مركز إمسات شير كعليشه هل صدر مثلا قل هو الله مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إمسات قور مركز خرابات غيبس يعني مصحف كامر كانوا يقولون قل هو الله النسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد انتهى ساعة صدر إلا لم يلد إمسات كو غيبس مركز إمسات قور أخرده
مر لبا صدح أفر شن لح تضوى سيدي إمسا تكون قيب كريس هدي عن إذا مثلا شن شير بات تكون قيب كرتا هدان إذا صدر كامر كاد أخرده شن يتبانك الصدر إمسا تكون أخريسا مرك يعني الصدر كيبا بعد تكون أخريسا مينت يبط سوما بيج كي مينت يبط بعد تكون أخريسا مينت يبط هدات تكون أخريسا بيج كالله باتن شيرين هذا أخرده maxay keensanaysaa waa nusu saaci page-ka 20 jeer inaad akhridaa waa maxay waa nusu saaci wuxuu leeyahay amaliyada xisaabiga ninkan sadarka hadaan ku idhaahdo buu yiri 5 jeer akhri oo si fiican oo akhri 3 jeerna muhaawale 8 jeer baad ku qaybi kartaa hadaan idhaahdo buu leeyahay macnaheedu wax weeyaan 12 daqiiqadood baa page-ka lagu qaybaa لكن والله 12 دقيقة oo tarkiis leeday bay yiraahdaan waa 12 daqiiqadood oo aanad meel la u jeesanin idan hadaad page-kii 12 daqiiqadood ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan wali la socdaa inamada dheeraynaya lama socdo page-ka hadaad 12 daqiiqadood ku qaybi karto hadii maalintii aan ku idhaahdo 5 saac akhri quraanka 5 salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa 4 ساعات يبرد 4 ساعات يبرد 12 دقيقة أدي لو دفته لحدا لو قيبيه واي بيسوي وشن بيج تدمين ساعات كستا شن بيج ما تغيبي كرتا هذا شن انت كو دفته 22 بيج يبرد معناه waxa weeyaan 4 saac يبرد waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 beyj labada beyj iyo barka tuur 20 beyj waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyay hadaad sidan ku socoto waxaad ku qaybisaa waxa weeyaan 7 maalmood taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban 30 maalmood uu sheegay uu ku qaybi karaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo mustahiil waxana iska xisaabaad sheegtay sheekhay practicalka lagu ma hayo practicalka hadii asbaab la helo waa wax suurtagal ah waxa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaam az-zuhri quraanka markuu baranayay 8 casho ku qaybay yani sida bale hisham al-kalbi waxa la yiraahdaa 3 casho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan marka taraajimtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin ragaas waa ragii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ahayn hadda jooga hadaba tilmaamo إلهي ارتوحين لي وفي أنفسكم أفلا تبصرون وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقل جيسو وحو قاضي وح عجز قليي ملايكته آدم عقل جيسو وحو قاضي محي سقرآن كنت الماميو وح عجز قليي ملايكته با آدم عقل جيسو قاضي سيكال هدانو تلمامو وحنا دلي هدي aynu iska reebno afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhri karo waxba lama baran karo wax waa saab waa cul hortii jabayay taas hadii taa la reebo waxa leenahay wax badan oo fududaanaya baa jira bal aan baad tajaarib ay soo naqliyaan tilmaamo gabadh haweena ayaa waxay tiri waxay igu qaadatay ali imraan يا البقرين عن قيبات 7 سنوات كدب يا بالرمضان شنية كدب أنك يوحي لبيت الوان اعتكاف تجي وحن قبنا بيت الله الحرام أفر عبورة روانه استابت روان وروري مركه ما الآن ريرك يقول دقني نوان دقني دبت أنا محاض قبنا دونتا شنية 10 رمضان كي أدقي مقيي يعني سويدية بيلاد أنا قاعد مهمومة بيتري قاعد ورثان بان إنترنت كقالي وحنا هلا بيتري ويب سايت كان أكاديمية حفاظ الوحيين والشيخ علي الربيع شيخ علي بن سعيد الربيعي ويب سايت كيس وويب سايت ذاتك قرآن كغيبة أي قلان أيان قالي بيتري دبتنا شيخ ويب سايت كيس مكان أيام وحنا ركيبة إلى ضهي قلا ماشي كو قرتي 10 أيام بقرية على عمران كو قيبنا أنا تضبط سنة ضد بيقول صغار تبيتر على البقرية على عمران إن قيبه وحنا كبيتر دمر له 3 مع الموت بان كو قيبنا على البقرية على عمران
dabeetana waxaan sidii buu yidhi maad qoladan wax ka bedelay maadna gashi website-kan register gareeyay bay tira waxaan rabaa inaan member ka noqdo dabeetana waxay gashay dawraad uu bixiyo sheekhu oo la yiraahdo dawraad tagyiir al-aqli buu bixiyay dawraadkiis dawraadka maan bedelka ayay gashay kadib ayaan bilaabay bay tiri munabbah baan saacad yar baan halkan dhigtay balinaan page-ka 10 daqiiqo 12 iyo waxaan la sheegay inaan ku qaybi karo waan tijaabiyay bay tiro 10 daqiiqadood baan page-kii koowaad ku qaybay dabeetana maalintii koowaad baan fadhiistay bay tiri subaxii ayaan fadhiistay goor barqa ah ilaa iyo 2:00 duhurnimo in yar baan jiifsay kadib baan casar fadhiistay ilaa cishihii maalintii koowaad baan istijaabiyay 3 jis baan qaybay bay leedahay waa hal maalina ayaan istijaabiyay bay tiro 3 jis baan qaybay 6 maalmood markaan marayay bay tiri 16 jis baan qaybsanaa 6 maalmood markaan marayay 16 jis baan qaybsanaa waxaan gaadhsiiyay bay tiri inaan 8 daqiiqadood page-ka ku qaybo waan ka badiyo markii dambe 5 daqiiqadood uma page kasta ku qaybi jiray gabadha tan mala caqligeena ka weynaa aan hore isaga dhaaf ومعاصم هويني كلا الله يدعى يدو حلادي أنا وحن سمي مسألة الله يدعى الاعتكاف بالقرآن بين سمي بيتنا لبعتن مع الموضوع ما القرآن قيبة غريبة لبعتن مع الموضوع ما القرآن قيبة بيلاد وليبا بيلاد ما نهين قف دمر عدة شوكتي أفر عرهورة يا بهود يا جورجا يا رير كان وان مامول يوان ودي بيلاد هبن كم مغري ساسي دراد بوحي شيئا سائل هذي دورات كشيخ سبحية بيتري علي الربيع علي بن الصعيد دورات كيسا تغيير العقل كان دقيستي كدي مركان دقيستي أيام بلا بيتري مسا ما أنتي هررت اللح صفحات بان قيبي بيت وان وذا يوم مركي دم بيوحن قاري بيتري نان لبيه طبعا صفحات قيبي كره ما المهي وجودن بيوحن قاري بيتري نان كنتن صفحات قيبه ما أنت أن خطي بينا لبيه تضباط صفحات بان قيبه لبيه تضباط صفحات ضايمس صفحتي هدين وليجسكو ولا 20 صفحات مسو نقونيا 3 جيس يا دheeraad waliba 2 صفحات baan maalintii u dambeysay qaybo weelada laakiin imise ku fadhiday waxay leedahay 24 kayga saacadood 8 ilaa 10 saacadood baan xifdi u fadhiyay 8 ilaa 10 saacadood ayaan xifdi u fadhiyay waxay ku tilmaamaysaa habeenkiina 2 saacadood baan seexan jiray maalintiina 2 saacadood iyo badh baan habeenkiina seexan jiray maalintiina snaab yarun baan qaadan jiray in yarun baan indha guduudsan jiray kadibna waan ka kici jiray waayo project bay sugayay bay leedahay inaan dhameeyo waxa laga yaabaa ina masaa'ilka kan ka yaabantihiin laakiin waxay yiraahdaan hadii sababta la garto bay yiraahdaan batal al-ajab wax waliba marka sababta garanay wax weyn buu kula yoodkay dayrad cirka maraysa markaad aragto warbalada tan maxaa hayabaad sooyidin laakiin hadii lagu dhigdhigo say wax doolaan iyo saadooda waxa warila waxan baa la isu geegeeyaba dad iska kacaan waa kula fududaanaysa yaani qofka bini aadamkii marka uu sababta aqoonin wax waliba qariib bay leeyihiin wax adaga weyn bay leeyihiin laakiin hadii lagu sababeeyo lagu riisan gareeyo wax lagu sheego wax way fududaadaan ilaahay wuxuu ina siiyay subxaanahu wa ta'ala maskaxdani aad bay u yartay jidhkeena marka lagu miisaamo bay yiraahdaan waa 2.5% wasniga jidhka ay yiraahdaan waa 1330 gram meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo xogaa yar weeyaa maskaxda kugu jirta haweenkana bay yiraahdaan rag 40 gram buu ka weeyay yani isku celcelinayna 40 gram bay ka miisaan yariyeen maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yiraahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc kamida kaligeed baa cunta allaaliya waxaad oxygen cabto rubuc kamida maskaxdaas cabta maskaxda waxa ku jira balaayiin unugya maskaxda inugu jirta waxay yiraahdaan 22 decimeter decimeter ka taqaanay centimeter ma hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter مربع يعني سكوير 22 decimeter intuu leegi somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yiraahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 waxay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book
inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa leeg aad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan مثلا أحد العلماء وبروفيسور كلا ماك روزيزن وكم دا علماء دا مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بنا آدمك مالين كسته 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكن كسته 10 شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برقصي هل كان بالنسبة لحدا سكنه سكن كسته أما ثانية كسته أو كم إذا نلاش قفكه هدي الله شيء قبوا لي 10 شيء 10 معلومة الله شيء مدة لحدا صنادات اللجوء ده habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل sida daraadeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yiraahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حسابي في الدقيقة سمين كرتها waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyan macluuma ay fi thaniya mu'aalaja ku sameyn kartaa yani computer dunida yalla saan uma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda dhaakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay sameeyso waxay ku tilmaamaan ahad ulama baa wuxuu leeyahay haddii buu yiri dunida waxa TV iyo telefisyon iyo radar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala haddii inta la yareeyo buu yiri aqliga bini aadamka kale loo ekaysiiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yani all telephone dunida yaala waxa allaaliyo waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayu ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya hadaynu isticmaali lahayn buu yiri xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow hadaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu yiri inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay يعني بني آدم كيبلدي وحي سادوس كو خدخدو كمبيوتر استرادو مسخدان يرا adiga ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eeg wax qaban kara in la sameeyo waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 770 mitir square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barnaamijyadiisa misaal la sameyn kara buu leeyahay taayada reeba yani programsku ku shaqeyn lahaa inta lagu sameyn karayo iyada reeba waxa meeshii alla wuxuu yahay taaqada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay taaqada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin wax qabasho la'aantu waa maxay qofka bini aadamka gacantaada mesela haddaad halka dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqeysaa haddaad halka dhigto 10 daqiiqo haddaad ku hayso marka dambe ku daalaysa walaal gacantiba way kaboobiyot haddii lagu yiraahdo saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaa hadhow ku damqato way shaqada tirta cudwi kasto bini aadam kamid oo la shaqo tira waa nooca ka cudwiga haddii la shaqo tiro hawlgab baa ku dhaca hawlgabku soo ugu dhacaya mesela مثال بسيط أنا بسياني كي يقول عاي بربراني كو كسرانية قاعد فوشة من القلبي كعم بانك شباب دبتنا بهلا ده يرير الله فها قاعد تكوشراي براي ميت كم إذا شفتي
الله يركبي إلا هلك الله يحري شاني أفرتان عشان مركي كو حدنيد بالله يغفري جابوت الله يغفري deetana waxa la yidhi wala waa ku jabantay dib baa haddana lay rakiba yurub baan la tegay 7 maalmood markay igu rakibnayd baa la furay dabeetana waxay dhaheen wali way ku jabantay ma lafti yaray wali ma rakibnayn laakiin gacantaydii baa halkaa dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaas ay joogtaa deetana waxay igu yiraahdeen laftan yara jabtay iska ilaa way imka khatar kala ku haysatee gacantan sida inuu kala bixin lahayn baynu tijaabinayna laftan iska jabnaato waxba layma qabtee physiotherapy baa lay diray halka dhudhunka iyo muruqa sare cududa laygu dhagaa waa layga cabaadiyaa saddex cashaan imaada xoog baa lay qabtaa waa layga cabaadiyaa marka qayliya cabaar baa lay sii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yar u kala baxayso maalinta bayda gacmaha isku dheerari labadeedii gacmood way sileegeen ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinay maxaan u jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xidho way hawl gabtaa hadii la xidho saa laga dhigo way hawl gabtaa mushkiladda ina haysataa waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnaa markaas waxa la inaga dhaadhiciyo la inoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buuga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno oo wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale inuu kala furaabad u baahantay jirka bini aadamkaahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaan ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeyay waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarka sare waa weeyay mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waa weynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban shaarka marka iska bixiya waa feedha yar yar laakiin cagu waa weeyeen waa loo train gareeyay yani qofka bini aadamka meesha la kobciya kobocda haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdi karto wax baran karto waa waxa aad u fudud bukhari hadii la qali lahaa maskaxinteeda leeguma ku jirtay kaba badnayn kuwa kale casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaaye ay yidhaahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa Albert Einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah yahuudi jarmal markii dambana Mareykan noqday waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weapon-kan la sheegay iyo fikradahan TV-yadan iyo waxan iyo waxa soo dhamin nadariyaad physics uu leeyahay ka soo burqadeen waxa ay yiraahdaan waa aqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan aqliga deentoodu bay yaqaaniin waxay yiraahdaan markay intoodii isku dardareen waa aqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo maray bay yiraahdeen sadaradeed bay waxay yiraahdeen ninkan yeeynana aasine balaan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxan ninkan ku jiray غير caadiga ah waxay yiraahdeen Einstein maxaa loogu tagaad malaynaysa qof bini aadam aqliga baa loogu tagay bay yiraahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein laga ma soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yiraahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiyo oo adeegsado idan Bukhari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad إمام أحمد وحو الرميسنا وحو حفظيين مكتبة سيهين أبو زرع وحو الرميسنا مكتبة سوحو قيبين ايتاي شافعي ساسو الرميسنا أئمدي هو رساسو ننكو علمي سلابتي سكسيت كمانكم ككتابة نشيغي إنه إمام الطبري بارددي سوحو لي يعني دين يري تفسير قرطة همدا يراتيبو يردايمك وحبا سد المجلدات بو يري تفسير سد المجلدات يرينيا وحانو لي همدا يراتي ما يرانتم با لغو بلابا مايا بعض العلماء با وحي قرين كتاب لا يداهدو من حفظ القرآن بعد 40 بن قري أفرتنشير رقي دافيا قرآن كغيبي
ومحاد قرآن شيغيسا أزهر أئمة دين كمدها كنت يا فرجير بوكو بلابي وحقرسته وإمام الأكبر للأزهر لكن كنت يا فرسو مقالة يسجد شوقي مركو أفريا كنت نشير مريي أيودي نيوماد وحبرتي زورته وقت بدن بابا كارلو مايه وابلابا أزهر بو صاقله دبتنا وسو ودي وسو تخرجي إمام الأزهر يسقى أهبر دنتي سقاشن شر دادي سر بريس سقاشن يا فرسنا ضم لا صنف لا ينقل دنتي مس سقاش مقالة لكن وحو دنتي سقى إمام أزهر يعني وحو آمن سنة أودي طاقة كتشرتا إني وح كستقبان كرتا أيو آمن سنة إذا وح مشكلة دمشق طالبين لنا ما أها waxa mushkiladda meesha taala waxay tahay koow inagoo jahli weynaga sugayay nafteena ilaahayna weyna leeyahay subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun ilaahay ba subhanahu wa ta'ala inoo sheegayo le wa 'allama aadama al-asmaa'a kullaha aadam waxa magac jiro oo dhan baa la baray waxa la baray aqoon malaa'iga ay ka caajistay oo sameyn kari weyday هذا آدم إن كيسو ما ضنته مالك لك ما دمان آدم كإله إلهي سبحانه وتعالى أسماء أردن بالله بري إن كيسي باطي تمعنى هدو حويا أنا ندوح كستبص ما ينكرته مسألة مركا ماشى تعالى وحويا جهل إنه نفتينا جاهل كنا هي أي وحي كانت يناد أركي ويدو حوق قال لك سبحانه وتعالى يا أود هذا هيسته سيد الدراديد أي واحد عضي inaad waxba qaybi kari weydo ama inaad wax baran kari weydo ama inaad xaafid noqon kari weydo nabi muhammad alayhi salatu wassalam hina leeyahay المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام يا مؤمن كحوجا إمام النووي وحلي حوجا لشيء وقوة نفسية بولي مؤمن كحوجا باك خير بدن بو نبي يقول مؤمن كضعيف كا لا بد بنا خير باكو جرو دي إيمان باكو جره نبي حين لا يحرص على ما ينفعك احرص أو احرص لا بد ولا شيء كد دال بالليل وحكو أنفعيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام عين كاسبين ليه وحاوين ليه نبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز لا بد ولا شيء إلهي كالميس سبحانه وتعالى يمرنا بها عجسنين عجسك وويني وأدقو أودا دا أركي وايه إن آدمكي ولالكي دليواكي أودي سيباركي وايه دابتنا ولالكي ونتور تسكي ستي إلهي سبحانه وتعالى أصدر محي غراب تكوح بره دابتنا وحولي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى تاخي ورما وحن كعاجسي ما وحن كهوس مري تكهكن حوق ووقب يجهل قاهيي xooggiisii wuu qabayay tukahan in cilmi ku kordhiyay jahliga hayay tukahan silsiladii ku xidhnayd buu ka furay oo silsiladan raba inaynu galabta iska furno yani qof bini aadam oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray wax qaybi karin ma jiro bal waxaan tilmaamaynaa leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa saxiixaynka ku yaala bal ay abwaabta u samaysteen باب التعوذ من الجبن باب كذا أي أبواب توصى ميستين وحا كمدة صحيحين كي غير كي بكسو أروري دعاء النبي إليه كمدة هاي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إلهي كما قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل بل وحي كمدة هاي أوراد يومي قال قرب قف كستو مسلمين وأخريه سبع كستمر كتصوت واستوى حتى هذا بالولي إله وحن كما قال عجز وعدم القدرة iyo kasilguna waa wixii wada ka wahsato ilaah waa daran ka magan galay iyo wahsi iyo tamar darro waxay tilmaamayna leenahay mushkiladeena waxay tahay hankeena yaraaday sida awgeed ay waxaynu ku qanacnay in hoose laba mid qaarkeen waxa bay ku qanceen quraankan inaan la qaybi karin koow
qoladeena quraanka qaybtayna waxa laga yaabaa inay bas halka ku qanceen halka hadii la gaadhay halkii uu sareysay in la joogo laakiin waxa leenahay muslimka maanta jooga iyo muslimkii hore waa isla bini aadam bal inaga ka fursad badan markay furaska tahay furaska Bukhari wuxuu lugeynayay intuu Bukhari ka soo lugeeyay ilaa Masar ilaa Iraq ilaa Sham ilaa iyo Hijaz ayuu maalimo dhan u socday cimrigiisii lug buu ku dhameeyay sidoo waday isagoo ururinayay laakiin adiga waxa laga yaabaa klik computer ka taabata inay ka xigta ama kitaabaad maktabada ka qaadata inay ka xigta wuxuu Bukhari inta la lugeynayay furaskii adiga haysta laakiin waxa yaala waxa weeyaan hankaaga yar hankaynu niyadaynu hayno iyo hankaynu hayno iyo waxaynu isleenay xaqiiqi baa yar marka horeba meel fog baanad kaba fakaraynin qofka bini'aadamkan hadduu hankiisu yar yahay waxa maaha casriga kan musaabaqaad baa la qabtaa sunanka kamida riyad saalihiin baa musaabaqo loo qabtay inaan muslimaado masriyada laba maalmood bay ku qaybtay ataajabuun ورياض صالحينك ولا بكون حديث ما لم بكونوا بيسك تورت لا بدي يكون حديث لبا مع الموت بيكون قيفت من السعيد قبل الله يدا معروف كوا قبل حفظه يكون معروفه بلوغ المرام تضبط ساعات بيكون قيفت بلوغ المرام مسومه تغانين كتاب هذا بلوغ المرام كلا يدا تضبط ساعات بيكون قيفت من السعيد وحي قيفسنت الهي كتاب كيس الصحيحينك بل وحي قيفسنت الامهات الاربع العشره وهويني أفرية تبانك كتابة سننك وقوة وين بكرك كهيسة دتك هذا النور الشيخ محمد حسن ولا الدودو شنقيط يا شيخ غنا والشيخ كنت تشرقاري مكو أفرتك داف 40 فنا بحفظ سنين وهلقى يا مكتبة هذا أنت كتاب تالي أنت قلبك يسقو شراين وكيسك وبطه وأنا قف بني آدم وأنا أفرتك بقاري أما يمكن أفرتك كطلابية وهن وحكني علماء الشناقطة شنقيط مركا تكتو قف أن وحو يقان قيب سنين بما تشوقه شناقطة ما بني آدم كقارب بني آدم ككلا مايا وانا أفريكانا أو ينو إيك وريرمية وجيلا هايستايا انتا ينو هايسانو ونولش انتا ينو كغانو الله ينكسي اللي ده تبا كغانو لكن وهو ذا حفظ سنين نينكستو شيخ لغو شيغا نينكو محمد حسن ولا الدودو غابا وحليهي أفرتم فني إن كان وحكاء قون ده شيخ لما يرهده بيري أفرتم فني إن كان وحكاء قون قفك وحو يقانو قيب سنين وحفظت وحوين ما إن الصوماليات وإنجليز كشوغا إنجليز كي من مالها المسلمين تو يمي صبحي بيري ما كان صلاة الصبح كبحان فرستا إلا تضبطه دور بلاد بكو قيب قرآنك ده تنوح كحكسية ألفية ابن مالك إن يربكو قيبي وحكو حكسية ألفية السيوطي إن يربكو قيبي وحكو حكسية الشاطبية إن يربكو وحسوا هذا بس كقيبي شيخ من كأردنية وخليج علماء كشيخ كمدي إنجليزكو كيمي رجل ربشة بدنايا مالها إنجليز كشوجيبو هذا بتنوع بس كجيمي مالها بيومي أردن لا بس أنا مالها سو مساجد سكو حري حتى واحد أركتبه هو قيب سنة كتابك هذا بالكن شيك سقو كركو كهيا وهذا بلا بيساون كتابك آخرين هي ما أها بشر عادي يدك كاني يعني ددتك كجديسن ماها هوشاد هيسابو هيان شقادة قبطابي قبطان سدح دمري قبان وآبيين عرور بيو شقيان واحد وضابي قبطان لكن حقيه وحسكوي دارسين وحين لاني واحد وحسكوي دارسين لبضا شيبا وباهنين نفهمنه inaynu han yeelano caali ilhimma inaad noqoto qofka caali ilhimma waxa lagu yaqaanay inuu aziimo leeyahay inaanu xamaas wixiisu ahayn laba cashiya maalintaad xamaasadooto inaad dabeetana laba cashina iswereeriso hadhownaad xagga daba kitaabka tuurta maya inuu noqdo qof aziimo leh fa idha azamta fatawakkal ala allah billahi markaad go'aansataan ilaahi subhanahu wa ta'ala tala saarta qofka caali ilhimmiga waxa lagu yaqaanaa waxa hoose kuma qanco وكو إمام ابن الجوزي لها هدي بيقول النبي النمذا الله أوران لها فرسمة لقوه ليا هي برشو إن أدوح النبي النمى كير رادسة وكود غنيمة بولي يعني مال نماري إن أدوه كهاس برتا وكود غنيمة واد ماري كرتاوية
waxaynu u baahannahay caaliyul himma waa qof raba shaqada uu qabanayo inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudi alkitaaba biquwa baa ilaahay yidhi yaxya kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamaya waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kana sacyuhum mashkuura ninka dadaala ee dantiisu aakhira tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uga mahad celiya waxay leenahay qofka caaliyil himmaga ahi waa qof wakhtiga bakhayl ku ah waayo 12 minid haddii bayj qur'aana lagu qaybayo imise saacadood baa kaa luma maxaad 12 kan kaaga dhigay wax weyn waxay yidhaahdaan culamaa'i nafs insaanku bay yidhaahdaan atacwiid waxa la yidhahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waayey bay yidhahdeen meel kaloo isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yidhi daynu isku mashquulinay dabeetana xaggaasaynu ka wada muuqan masalada meesha taalla waxa weeye waxay dhahaan caqliga bini aadamku waa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa alcaqli alwaaci qaybna waxay ku sheegaan alcaqli albaatin aw illa shucuuri alcaqli alwaaci waxay ku tilmaamaan waa caqliga soo jeeda waa caqliga taxliiliya waxaan xawaastu ay aragto isha iyo dhegta iyo maqalka iyo dareenka iyo waxa kan ka warrama fakara wax sheega caqlina waxa la yidhaha waa caqli albaatinka caqli albaatinku waxay yidhaahdaan waa xajmi aad u weyn isagu caqli alwaaciguna waa wax yar bay yidhaahdaan laakiin waxaa yar baa hogaamiye bay yidhahdaan caqli alwaacigu markaa wuxuu u dhigmaa bay yidhahdaan waa naakhuudaha doonta wada doon weyn buu wadaa laakiin isagu waa naakhuudo yar caqli albaatinka waxa la geliyaa ma lumaan waxaad see u baahantahay inaad ka dhaadhiciso shaygu markuu caqlulbaatinka caqlulwaaciga ka sare waa kan fakere ee taliya ee warrama ee warka sheega laakiin intaad soo jeedana wuu soo jeedaa markaad hurdanaysna wuu seexdaa wuu maqan yihi caqlilbaatinku isagu ma seexdo habeen iyo maalinba wuu soo jeedaa wixii loo dhibana waa ilaaliyaa caqli albaatinka waxa wax loogu dhiibaa ku celcelin iyo ka dhaadhicin altasdiiq watakraar baa ugu badan bay yidhahdaan in la fahamsiiyo laga dhaadhiciyo laguna celceliyo isagu bay yidhahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa dabeeca iyo sajiya iyo caada iyo suluuk buu bedela yacni dhaqan buu bedela maalan waxaa laguu sheegay xadiid nabi calayhi salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato socanka maaha xadiidkaasaynu haynaa maalinta koowaad ee xadiidka laguu sheegay ee sheekhu kitaabka dhigaya adag fadhiday waad fahamtay xadiidkii hadhow markaad maqaaxida tagtaan shaa dalbataan umad bidix iskaga yara qaadoonkaasuu sheekhu ku yidhi ka daayo midigta ku cab waad iska dhigto midigtaad ku qaado waan ilaabay baa tiri sheekh midigtaad iskaga cabtay 3 4 5 casho hore marna bidixdaad ku yara qabanaysaa marna midigto markaad dhexda marinaysa umaad xasuusanaysaa adagaysaa masoonaysa war shaydaan baa nala cabay midigtaad ku qaadanaysa laakiin markaad muddo wado automatic bay isu bedeshaa koob baa la soo dhigayaa midigtu maad ku qaad weligaa bidixda ku qaban maysid waad ka barata waayo waxay yidhahdaan caqli albaatinka ay degtay uma baahnid inaad fikirto tiraahdo ma bidixdaan ku qaadaa ma midigtaan ku fikrad lagaama rabo inaad tiraahdo bidixda iyo midigta teebaa go'aan ku qaadanayaaye waad iska fiiqaysaa qoladan waxbaadha waxay yidhahdaan maalan askari haddaad doonaysa bay yidhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu tireengareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabmi jiray haddii aad askari taagto oo isiraha socod bilow bidixdun buu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidix kolba tii u fududaata inuu qaado idan caqli albaatin kuba yidhahdaan waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaana in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalintumaad miirowdaa soo ma jirto yaa akhrinaya ilaa adigu waad maqnayde yacni caqli lwaaci baa maqnaa caqligii soo jeeday ayaa maqnaa laakiin caqli lbaatin baad u dhiibtay mar haddaad caqlulbaatinka u dhiibtay ma dayacanto waa iska wadaya isagu wala daalli intaad ku miirowday uun markuu marinayay waxa la mida xifdigu markaa marna waa xifdi iska sariic oo intan yara sarun intaad dulka xaadisay caqli lwaacigaa haya
oo safxadaad ka fakaraysaa oo aayadda ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaad eegaysaa oo maskaxdu waxbay xisaabinaysaa intaa wali caqli alwaacigi baa xifdigaagu ku jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakartee sida faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan waqtigeena ka faa'iideyno oo isku dayno inaad waqtiga ka faa'iideysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaynu u baahanay inaynu ilaahay barino tala saarno gabadhan ilaa 16 jis bay qaybtay waxay tidhi marka aan dareeriyaba maalin qaybaba waa sujuudaa sujuuda ilaahay ku barya ilaahu intaan aadan ku dhiibay ma ilaaba bay tidhi intaan ilaahay u dhiibaba waa qayba un bay leedahay marka dhameeyo ma ilaada ilaahu aadan ku dhiibay nabiguna wuxuu ina leeyahay alayhi salaatu wasalaam a'jasu an-nas man ajasa 'an ad-du'a dadka waxa u caajisaysan ka ilaahay baryadiisa ka caajisa dadkaas ugu caajisaysan buu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay wax kasta aynu qabanayno inaynu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u tala saarano waxaynu u baahanay midalan cilmiga barashadiisu waa tarkiiska bay yiraahdaan aqligu marka wax qaybayo waxay yiraahdaan 10 daqiiqadood oo tarkiisa ayaa 10 saacadood oo kolba darbi daawanaysa ka fiican ولذلك bay yiraahdaan ardayga xaafidka wax qaybaya waa inuu qayba meel uu aqliga tarkiisin karo oo aanu wax mashquuliye arki karin oo sadaraadib culimadu waxay yiraahdaan inta ugu badan la qaybis waxa ugu fiican suxuurtiya wixii ka dambeeyay ilaa salaada subax ilaa intaasi waayo waqtiga bay yiraahdaan jawiguna waa haadi dawda iyo qayliya buuqtoona maqlimaysid calooshuna bay yiraahdeen ma buuxdo caloosh haday buuxdayna waa inkaar وأيضا ديجا بين تبدأ عبتواد مشغولة لكن مركب بيلين شركنا وفدود يهاي علاشنا مب وحدة ديجا أنت وقوب بدل مسكح ذا قاعدة نسا قفكنا وتركيزين كرابين هذا إذن ووقت الحفظ بيكون المام شرع على ماذا هراء إنه يهاي وقت جوفي عن وقفك وحفظي كرو واحد كلاو با أنت هاي إمام حسن البصري بوحلها ورنفت بيله هدانا حقكم مشغولين باطل كيكون مشغولين نسا nolosha ma jiro waqti firaaqa leeyahay imika bisha horta waan shaqeynaya bisha shaqeynaysa qayb waayo noloshu waqti firaaqa aba ma leh mar kasta hawl nooca un baa ku haysata sadaradeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan al-basri war naftan hadaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyada baatilka kugu mashquulinaysa adigu shughul ba waayimaysid adigu shughul waayimaysid mar hadaanad shughul waayina adigu shughulka xadee shughulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga ka soo fulo ahmiyad ku kala leh oo priorities ku kala fog waxaad kale u baahantay albi'a almusabbita inaad ka tagto dadka cajsi galiye waxba lama qaban karo waxba nabi muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulku waa maxay waa inuu qofku khayrka hadiya goor sheego wanaaga in waxa la qaban karo culamaa nafsi waxay yiraahdaan الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية وحلا يراهدان شيغان waxay yiraahdaan risalaadka iijaabiga positive-ka wanaagsan iyo wargeysyada ama dhambaalada negative-ka ama xun mesela bay yiraahdaan ilmaha yara quraanka aad u dhigaysaa tidaa qabi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihiin ximaar culamaa nafs waayo waxay leeyihiin hadii lagu celceliyo aqlul baatin ku galaabay yiraahdaan aqlul baatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan sadaradeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihiin inuu fashiliyay oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay yiraahdaan tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicanta inaad tiraahdo inaad adigu yara samayso tiraahdo maanta ana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 minute halka u bax intaas ugu filan bay leeyihiin inuu qaybo ولذلك حتى waxay yiraahdaan markay culimada kuwan psychology markay ka waramayaan waxaad rabtay waxa laga yaabaa nafteena inaan wali baran waxaad rabtay nafteena ka dhaadhicay intaad cidla fadhiisato bay yiraahdaan u sheeg adigu naftaada kor ugu dhawaaq bay yiraahdaan ma arinta ka war waxay leeyihiin intaad cidla fadhiisato waxa tiraa quraanka waan qaybi karaa waxay leeyihiin waa risaala loo diray bay leeyihiin aqliga musnaa حتى بيد هذان سيد النيجاتيف كاها واستعمال بيد وايا تضمبو قبطا بيد هذا مثلا النيجاتيف اكو استعمال يعني ما اودي كروينا ما هي فاشل هاودن بيد فاشل كو قبنا يا بيد هذا واحد هذا ناجح بان وان غوليسني هذا بيد هذا واي واحد عقلك بني ادمكو hadii lagu yiraahdo مثلا iminka bay yiraahdeen faras madow ha ka fakirin
maskaxdaadu marka ugu horreysay faraska madow bay qabanaysaa bay dhahay diimka ku dhahay faras madow ka fakirin faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u talaabaysaa laadii hore bay yiraahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraadeed waxay culimadu yiraahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة قفكو إنه استعماله وياه نفط إنا دوش نلش الصعوبات في إلاده وذلك كرتا مشكلة باكاهر ما كرتا وحاسي لكن وحلوه بهينة كدول بودو وحلوه بهينة طاقات كي كوكو كيت سنائنا ديبو أديكسته وحلوه بهينة سديبين نلش سديب كاوغول ليتا وحلوه بهينة مركاينة تنهضا وانقابن كرا وانقابن كرا وانقابن كرا واقيب كرا واقيب كرا واقيب كرا سيدا أوغيد nafta inaad adgu mashquulisaa baa loo baahayay waxay yiraahdaan bi'ada marka qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicanta la saaxiib had iyo goor mid ka qaybis badan iyo kaasi horbooda ku sii hor socda ninku wada walidaalka waxay yiraahdaan jawharadu bay yiraahdaan hadii jawhara meel nijaas ay ku dhacdo shay thamiin oo astiraahda taahiri biyo badan hadii lagu shubo aakhirka way taahiraysaa laakiin waxa ka fudud bay yiraahdaan intaad ka qaado aad maydho in yaro biya nusko baan nadiifinaya maydhaya laakiin halkii uska guyaalay dad biyo ugu darto waa ta macnaheedu waxa la mid ah bay yiraahdaan dadka musbiitiintii haday kugu xeermaan un dad le waxba lama qaban karo hadaad la noolaato adna waad caajisaysaa marka dambe waxaad isku daydaa bay leeyeen dadka duulaya inaad la duusho dadka wax qabanaya inaad la qaban karto walidaalika ikhwati fi al-aqiida waxaynu u baahanay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimka ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaasi niyya ilaahi subxaanahu wa tacaala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaynu leenahay 60 sannadood haddii second kasta 10 shay lagu sheegayo hal loo qaybiyay milyuun awoodii maskaxdaada ka mid ah baa la isticmaalay bay tilmaamayaan adna waxaad oranaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacantaydii xidhantay oo aanad ku dayin inaad kala bixiso يعني واحد u baahan tahay inaad kala bixiso aqligaaga inaad soo celiso waxaad u baahan tahay taaqada alla ku siiyay subhanahu wa ta'ala inaad ka mahad celiso inaad ka mahad naqdid oo dib aad u adeegsatid waxaad u baahan tahay marka inaad ilowdo cabashada iyo ma awoodo iyo cawaamisha nafta dib u dhigtay iyo waxa soo dhan inaad ilowdo aad mundafic noqoto aad hore u socoto waxaan leenahay waxaan u baahannahay al-awaamil al-mu'athara al-kharijiyya waxa nafta dhiirigeliya مثلا hadii la wadaado halka 4 saacadood istaag waa adagta 4 saacadood saamagu taagnaa karaysa ciqaab ay noqonaysaa xubin waliba oo damqanaysa laakiin hadii la yiraahdo hargeysa maanta ninkii 4 saacadood taagnaa $10 buu leeyahay cidii ilahayd inaad arki jirto ma malaynaysa lama arkeen ayo $10 baa mooda $10,000 hadii la sheego 4 saacadood oo qudus la sare taagnaado dhabar iyo meel ku xanuunta baad geejinaysa dan noloshu waa caynka waa laga yaabaa markay leenahay waxbaro araaqil baa jiraysa ka hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'atharaat khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dema mu'athirka weyn baad garanaysaa jannatin 'arduha as-samaawaatu wal ard u'iddat lil muttaqiin haday ku muuqato janna cirkan iyo dhulkan balaag iyo waxaan oo dhan ka weyn inaad helayso 14 iyo 20 batay taagnow 10 iyo 15 baa u i'tikaaf inaad quraan xifdido culamadan ku sheegaan leeyahay waxaan baadhay man xafida al-quraan baan ku dhuftayda kutubtay qaybsayin wad qariibsanaysa xafida al-quraan kada kada dabeetana waxaan leenahay qof waliba wax buu qaybi karaa daa kasta joog cidaan la hadlaya maanta ma ha dhalinyaro way dhalinyaradu haday soo bilaabayaan fursadii bay haystaan waa daada roon ee isla waqtigiiba ay dhaafay war habeenidii kama tagin ninkaasi kontoriya 40 jirka aha 4 sano jiray baan leenahay sheekhu Lazar noqday idan aqligiina alla uu ku siiyayna waad haysataa waxaad kale u baahan tahay waxa weeyaan waqtiga inaad ka faa'iideysato
waxay yidhahdaan hajmatul waqt inaad adigu waqtigaaga weerar ku ahaato waanu kaa dayacmin aad ilaaliso waxaad u baahantahay makaan munaasiba inaad heshido aad wax ku qaybtay ama wax ku xifdidid waxaad u baahantahay bay yidhahdaan muntadim inaad noqoto qof nidaam raacaya inaad noqoto waxaad u baahantahay bay yidhahdaan tikraarkaasi tirada badan le inaad samayso waxa runtii aan sheegi karnaa mase akhriyi karnaa wax badan waxaan ka warramayaana wax khayaal maaha xaj ka mid ah xajajka ayaan tegey axad alculamaa baan khaymadiisa ku soo booqannay niman dhallinyaraa baa la joogoo fataawida ka fatwoonayay markaasu wuxuu yidhi nimanka kan waxaan ku tijaabinay inay sunanka qaybaan dabeetana markay qur-aankii qaybeen sunankiina way qaybeen iminkana musnadu imaamu axmed 40 kun oo xadiido imaamu axmed ay haddana wadaan buu yidhi iyana waa qaybayaan waa niman dhallinyaro iska caadiya waa nolol caadiya ku nool dee innaga waan laynaguba eegin waxa layna yidhi waxba lama baran karo waxa layna yidhi waxba lama qaybi karo waxa la yidhi waxba lama noqon karo saa daraaddeed baynu waxba noqon weyne laakiin maanta waxaan idin leeyahay war waxbaa noqon kartaa bukhaari waa idinku jiraa ee waa la soo qaban la'yahuun bukhaari kelmad baa soo saartay isagoo fadhiya jalsadii isxaaq ibnu rahwey axadu a'immati alxadiid shuyuukhdiisii ka mid ah isagoo jalsadiisa fadhiya ayuunbuu sheikhu maalintii wuxuu yidhi ma alla helo low mid idinka midi talow muu ururiya axaadiistii nebiga ka asaxday kelmadda unbaa bukhaari qub ku tidhi isagoo jalsada iska fadhiya ayuunbuu sheekhiisii wuxuu yidhi talow ma alla helo nin idinka mid ah oo ururiya axaadiista saxiixa haadihi alkalima baa anfacday imaam albukhaari dabeetana wuxuu u xidhxidhay inuu kitaabka bukhaari qoro laakiin bukhaari inuu qoro juhdu ku bixiyey habeenkii 20 jeer buu kici jiray mararka qaarkood habeenkii 20 jeer ayuu mararka qaarkood faynuska shidan jiray imaam dahabi imaam albarzali muxaddithaha imaam almuzani ay ragay muxaddithiinta wada joogeena ayaa maalin arkay dahabiyo wax qoraya dahabi aad buu farfiicnaa dahabi wuxuu ku horeeyay cilmi alqiraa'at iyo quraanka iyo xifdiga iyo xaggaas ku horeeyay dabeetana imaam albarzali un baa arkay isagoo wax qorayo markaasuu yidhi khadkaagu fiicana waa khadkii muxaddithiinta kelmadda un baaba qub tidhi baa la yidhi imaam dahabi markaasuu u dhaqaaqay cilmi alxadiid waa dahabigu ibnu xajar u cabayay biyaha ilaahu xifdigiisa haysii nin un baa yidhi war far fiicani dee fartii ahlu xadiidka aad leedahay un baa lagu yidhi fartii ahlu xadiidku yeeshay dabeetana yani eray baa loo sheegay imaamu dahabi dabeetana ka dhigay inuu noqdo imaamu dahabi dariskan maanta aan waday markaas waxaan rabay inaan idiin sheego culimmadeennii tagtay dad khawaariqul caada oo gaaro oo qiino gaaro meel gaara laga sameeyey inaan ahayn saynis yahanada iyo aqoon-yahanada maanta jooga dunida la leeyahay cirkay wax u diran iyo halkan ka baxeenna inaanay dad gaara ahayn laakiin waa dad ku qancay in ilaahay awood uu siiyay ka faa'iideyn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan wax oo awoodi karaan nalkana arkaysaan ninkii bilaabay Watson 99 jeer markuu ka bixiyay markunaadkiiba u baxay tasmacuun laambad buu rabay inuu shido cilmigii bariga bilowga ahaa ee waday waa wadaa waa bixi weydaawn waa ku soo noqdaa waa wadaa 1000 marra buu ku shiday bay yidhaahdeen markunaadkii buu ifiyey tawaynaga wali ifisanayna laambada durida nin baa gami waayay inuu ay la noqotay inaanu ka gamayn bahashana baxda mooyaane dabeetana markuu gami waayay un bay aakhirkii laambadii baxday dunidoo dhamina waa taa wada laambada noqotay kelmadaan rabaa maanta waxay tahay programmingkii hore ayaa formatting la idinkaga samaynayaa taarifuun luqadda computer waa taqaaniin baan u malaynayaa shayga marka dib loo masaxayo waa la format gareeyay bay yidhaahdaan waxaan rabaa in maskaxdiina dib u format garaysaan ka format garaysaan cajzigan iyo wahniga kan iyo waxba lama qaban karo taa meel inaga dhiga waayo dadkii horena waan idinka sheegay kuwa maanta joogana tusaalahan ku badiyay inaan idinka siiyo qaar 20 casho ku qaybay iyo qaar 30 ku qaybay iyo qaar Bukhari iyo Saxiixaynka qaybay war haddadan مثلا labadan inaan sheegay nin kamid ah Dr. Yahya al-Ghawthi Dr. Yahya al-Yahya
حفاظ الوحيين ويب سايت كلا يراني كله دكتور يحيى اليحيى أحد العلماء مدينة جنب رجيني يحيى اليحيى وحلي برنامج سنن كلا قيبسية دتي قرآنك ما تقارنين أنت لقوا قيبسية قرآنك الدورة دي سؤال لحدا مع الموضوع لقوا قيبة بس labada bilood ee ardada iskuulada ka fasaxatahay ayaa la iskareeya ardabu la iskareeya xarameynku keena labada bilood ayaa quraanka lagu qayba waa dawra li hifd alquran lixdan cashaa meel la fadhiyaa shaqo kale la qabanin laga rabixin cunada un la cunaa loo i'tikaafsay in quraankaas un la akhriyo la kala dhageysto lixdan ka cashaa ku qayba sunanku dadka qaybsiya نظام قارو اسكالي وراعه اولا بخاري هي صحيح مسلم كو انت اسكو وافقين مصو ururiyay كتاب قارو قري كتاب كسار دد لو ديبا متفق الشيخان با لا قيبسيا كدب اي ardayga waxa la qaybsiya man farada bihi al-imam al-bukhari oo gaara wixii imam al-bukhari oo dheer yahay waxa la isku ittifaqsay kadib ayuu qaybsiya wixii imam muslim munfarid leeyahay ee aan ku jirin bukhari inta markuu qaybsiyo alfaad ay muxtalif u yimaal qaybsiya kadib wuxuu raaciya sunan kala soo qaada abi daawud wixii aan bukhari iyo muslim ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbireeya intaas la qayba tirmidi wixii aan saddexdii kitaab hore ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbireeya rag unbu soo saara sunan ka qaybsan idan waxaan idin leeyahay شبابك حفاظ القرآن كهي يجا وحن لا يبلو باتين هذا القرآن كه هيسان كصعدة حديث كقيبة علوم الآلة قيبة كتاب دم بينك آخرين يا الله ينارك كتاب كآخر أنت كقيبة بس أئمة المسلمين لما تدعي كاسيها كتبته دلابته ده كسيته إمام الشافعي قبل يسمعوك شيء هاكيلو هذا علمه waxa qartaas ku qoran ma habuudo waxa qalbigaaga ku sidato Ghazali baa leeyahay bari kutub soo rartay isagoo wata tuugi heshay markaas ay dhacdo kasoo war kitaabadu iga taga cimrigayga wixii aan qorayay halkay ku jiraan war saacad ku yiraahdeen kitaab leeyna maalintaas uu tashado yiri cidlaad qodaysi wixii dama uu qayba de tuug dama muxuu ka qaaday kitaabkiisi laabtiisa ku qayba waxaan uga jeedaa marka كلمة تاني وحياة فرا واحد إن نصوص أرنا ذهبي يا بخاري يا مسلم يا شافعي يا أبو حنيفة يا مالك ويد كبوحان هذا علوم مادية هنا أينشتاين يا غير كيبا ويد كوتشيران لكن هاكو قنعنا وحبا قرن ميسيدي يا وحبا برن كريم ميسيدي يا مال عدلها بات شوكتا يا أدو أفريكان باتا يا كباتا يا عجمي باتا وحسوا شاكو طاقة ألا كسيه إلهي وقام هدي عليه سبحانه وتعالى اسكرت دينا دا ديكسته رجع هلكن كوي اعتكاف سنة وحلا يدين كل إحدى عشان تجابين يسامبا إلى قرآن كقبطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتكاف سنة وحلا يدين كل إحدى عشان تجابين يسامبا إلى قرآن كقبطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته